waxayna ku timid qiso run ah. wiil iyo gabadh isjeclaa yaa la isu diido, labadooda family ay isu diideen arrin qabiil ku saabsan awgii. inagoo kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa channelka Fandor Media oo aalab in sugbiyo barnaamijyo xiiso leh war iyo warbixino. maanta barnaamijkan wuxuu saabsan yahay qisada ka dambeysay heesta Sultan Seyraar ee 2005. intaanu guda galin barnaamijkeena, fadlan walaal macaan markii kugu risadeeta channelkeena soo boqoto subscribe saar, gomala kana furo si ay kugu soo dhacaan waxyaalaha aan soo gelin markasta. haddaad horna ula joogtaan muuqaalkan like saar una sii sheegay asxaabtaada. ta kalena waxaan maqlay Soomaalidu like kuma saartan garanaysaa fiidiyogan like saara. waxaan rabaa inaad fiidiyogan like saartiin inay lacag lagama qaadaye like iska saar. ha adaan kula hadlaya adiga nimika ay daawanaya inaan waalan muusa laakiin ma waaliye. anu guda galna barnaamijkeennii. haddaba heestan 2005 waa hees qiso dhab ah, waxayna ku timid qiso dhacday oo run ah, waana 2005 micno badan ayaana ku duugan. erayadeed waxaa sameeyey abwaan cabdiyare caaqilka oo qiso dhab ah ka sameeyey. sidoo kale laxanka waxaa iskale fanaanka caanka baxay ee qadar suugaani, muusigan axmed weli furinle, codkan waxaa ku luqayay fanaanka Sultan Seyraar. heestan ayaa social mediaha muran badan ka dhalisay, micnaha dadkana aysan fahansaneen 2005 wax loola jeedo oo Soomaali badan ay ku weerarsanayeen. waana heestii ugu horreysay ee lambar ahaan magac loogu soo ama title loogu soo sameeyo 2005. daba sheekadan waxaa ka hadlay oo qisada ay ku timid heestan faahfaahiyey fanaanka Sultan Seyraar. waxa uuna sheegay inay heestan tahay hees qiso dhab ah lagana sameeyey abwaan cabdiyare caaqilkana uu ka sameeyey heestan qiso dhab ah ayna ku dhacday wiil iyo gabar isjeclaan muddo badan wada socday, xiriir jecelna wada lahay, balse nasiib xumo markay isguursan rabeen guurkoodii waa la horjoogsaday oo waa la isku diiday arrimo qabiil la xiriira awgeed. wiilkii gabadhii la isku diiday, balse xiriirkoodii ma aysan kala lumin oo waxay isjeclaayeen. markii la isku diiday kadib muddo 2 sano ah, nasiib wanaag markii ugu dambeysay waa isguursadeen oo waxa uu arooskoodu dhacay 27 bishii shanaad ee lasoo dhaafay oo hadda ahayd. sidoo kale abwaanka heestan sameeyey ee cabdiyare caaqilka ayaa sheegay in heestan micno badan uu ku duwan yahay 2005 na looga dhigay markii arooska uu dhacay wiilkii gabadhan isjeclaay. heestan ayaa noqotay heestii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee lambar looga dhigo magac. heestan ayaana noqonaysa heesaha Sultan Seyraar oo qaada kuwa loogu jecel yahay. fanaankan ayaa heesihiisa inta ugu badan waxaa gaaraan 2 milyan marka la daawado. heestan waxaa la filayaa in 2 milyan oo daawasho ah ay hesho. halkaad nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandor Media oo aalab in sugbiyo barnaamijyo xiiso leh warar iyo warbixino. walaal macaan markii kugu risadeeta channelkeena soo boqoto subscribe saar, gambale kana furo si ay kugu soo dhacaan waxyaalaha aan soo gelin markasta. haddaad horna ula joogtaan muuqaalkan like saar una sii sheegay asxaabtaada ku maasantiin daawashadiina.